kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagaga hadlayay doorka ay haweenku ay ku leeyihiin doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dalka waxaana kulankaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah maayirada dalka haween uqaal waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona soo xidhay kulankaasi uqaasha iyo meeyarada iyo maamulka dawladda iyo cid walibana way taabanaysaa cid walibana waqtigeeda la kulmasaa haweenkuna iyagana waxaan u sheeganaa inay u diyaar garoobaan hadba sida ay iyagu banaanka isu keenaan ee u soo bandhigaan rabitaankooda iyo inay ka go'an tahay ka qaybgalka siyaasadda ayay wax ku helayaan laakiin ta muhiimka ah waxa weeye saad u campaign garaysaan saad u ololaysaan saad u soo jiidataan wax ayaad wax ku helaysaan wax kale la idin sameeyay oo dhami waa taageero laakiin inaad idinku halka hore uga kacdaan idinku xidhan tahay wixii halkan laga soo jeediyay aaraa ee la soo bandhigay barnaamij bay noqonayaan aan ku wada hawl gallo qolo waliba way ka qayb qaadato ra'yigeedii way keentay kulamo kale oo saas oo kale la soo bandhigo aaraana waa la qaban doonaa oo aynu isugu wada nimaadno ballanteenu waxa weeye arrinta haweenka iyo siyaasadda inaynu dhinacyada ka taagnaano oo ku taageerno wasaaradda arrimaha gudaha annaguna wixii khuseeyay ee tale la soo jeediyay waanu qaadanaynaa wasaaraddii baanu la tegaynaa waanu qaadaa dhigaynaa gorfaynaynaa wixii aanu insha Allah taala ka qaban karno inaan wax ka qabanno waxba kala hadhi mayno dadaal